saddexdeennoo gadaasheeda ka muuqata saaka qaar ka mid a iyakoo qaylyaaye ayaad birti la mariyoo la toogto xaranaa la geeyey lahaan lay dilin ma waa laygu qasbay inaa aamina maxaa cabdi dilo yaan lay dilin qaraxyadan sameeyey aniga maaragtay rag baa igu qasbaayey yaan lay dilin maaragtay anigu maana rabin inaan noocaas noqdo yaan lay dilin digtoornimada beentaan ku qaraabanaya rag baa ii sameeyey yaan lay dilin maaragtay inaan wax walba been ka sheego rag baa igu qasbaayey yaan lay dilin haliska kee cafiye isagoo ku dhawaaqaya erayadaas ayaa saaka toog lagu soo xira xalane oo kow looga siiyey kornaylkii kale oo aad iyo aad nin loo aaminsanaa ahaa asagana asaga ruuxiisa markii xarga lagu xirxiray afkuu labadiisa yeeray wuxuu yiri hal maraan anigu nimankaas wax ka gaday yaan nimankaas la ii toogan hunguriyaa i qaaday gunnadiyaa layga goostay mushaarkiyaa layga goostay hayaan la idilin saddex nin oo saaka toog loo xiray oo gadaasheeda ka muuqata waa arki doontiin saddexduba ayakoo filal dambi oo al-shabaaba ku jira ayaada la qabtay baaritaanana ku yimid nin walbana afkiisuu ku qirtay maxkamadda xeer ilaalinta qaranka ciidamada qalabka sida ayaa wareysatay nin walbana afkiisuu ku qirtay wax walbuu soo sameeyana wuu sheegay saakana xarigoodii waxaa soo dhammaaday qasaastoodii soo dhammaatay saddexdiiba waa la tooga doctor fanax iyo korneylkii magaciisiyaan laqee isaga ahaayo isbitaalka xoogga laga qabtay iyo midka kaloo ku garab xiran saddexduba ninba hadal nuucuu ku hadla saakay waxaa loo qisaasay boqolaalkii qof kumanaankii qof oo maskaxdooda iyo mishinkooda ku dhintayaa loo qisaasay ummadda soomaaliyeeda dhiigga dadka soomaaliyeed oo shacabka oo daadanayay raggii daadinayay in waajib laga mariyo ama raggii dhagaraha maleegayay oo hubka lagu leynaya shacabka kala shaqeynaya nimankan qawaariijta in saas waajibkooda la mariyo aniga xil guntadaa qofna uga xishoon maayo raalliyaana ka aha ilaahaan ugu dhowaanaynaa soo dhowaada marka ama tiirka ku hadla ama maxkamadda dhexdeeda ku hadla ama ii sheeg ama meel gooniya ku hadla dowladdan inka hari mayso ninkii fal dembiyeed gala digtoor ahaad ganacsada ahaad shaqsi kasta oo tahay waa lagu soo qabana xasan sheekh iskamana dowladda waxaa iskale shacabka soomaaliyeed waxaa loo dhaarshay dowladdan shacabka soomaaliyeed inay badbaadiso waxaana laga badbaadinayaa nimanka argagixisada shacabka soomaaliyeed waa nimanka ogolaaday dad hal mid ka mid a qori sidan oo 100 qofa oo hotel fadhida inay qarxiyaan nimanka ogolaada waayo waa nimanka ogolaaday arda wax baranaysa oo qalin jabinaysa inay qarxiyaan waa nimanka ogolaaday nooc walba inay noo dilaan maxay intaas ugu fakareen madiina yay la dagaalayeen ma dadka shacabka la dagaalayeen yay la dagaalayeen ma qabiil gooni la dagaalayeen yaa lagu dhex abuura nimankan waad fahmi weyday Soomaaliya adigoo hawiyaan adna waad isku fakaraysaa Soomaaliya unuka iskale iyo ka iskale unuka saas ahaan jirnay aad isku wada leediin Soomaaliya wali mina jilcin markii reerka ka soo toofo reerka familka halka guri ka soo toosa 5 wiil markii la iska dul saaro ama 5 qof oo isla dhalta markii la iska dul saaro waad ooyeysiin oo meelaad isugu imaanaysiin markaad dugtiin waad iloobisin sababtii dadka dhibkan kugu yimidna ma baaraysiin laakiin wixiina ogeyn nin gurigiisa nabad ka soo dhigtay oo ilmihiisa nabad ay u joogaan oo gurigiisa nabad u yahay oo maamulkiisa nabad u yahay inuu kugu dhex baashaalayo nabadana ku diidan yahay taasaada fahansanayn adiga haddaad taas fahmi laheedna rag baad la ficiltami laheed hoosna ishugumiina soo laabteen gurigiinaana nabad ka dhigan lahaydeen odagiinniyaa hadlay idaacadu u yeertay wuxuu yiri dadkii uu kala qaaday dad gooniyaa la riixayaa uu yiri mid kala hadlay badbaado qaran annaka dhalay dadkoona annaka badbaadinay qiyaaliga dadka lagu sheekaynayo beenta dadka lagu sheekaynayo waxa dadka lagu sheekaynayo been waayo dadka Soomaaliyeed aqra maysi jirin maalintii badbaado qaran dhacaysay ninkii diiday oo hadlay oo dadka kiciyay shakhsi ah qabiilkiisana in la soo qaada ma fiicna qabiilkiisa in la faaniyana ma fiicna laakiin shakhsigu ah waa la yaqaana ninkii badbaado qaran ka hor yimid dowlad rabtay 20 sano wadanka inay haysato maxaa Cabdullaahi Farmaajo u tilinayay oo duufaan iyo gorgor iyo haramacad iyo nimankan la yiraahdo danab iyo adduunyo dhan loo dhisay nisa loo dhisay oo loo tababaray waliba dhalinyaro yar yar oo 30 sano jirta loo tababaray inaan wadanka gacantooda uusan ka bixin
ninkii ka hor yimid oo waxaasoo dhan isagoo ka warqaba oo la shaqaynaya yidhi waa diiday yeeli maayo magaciisa waa la yaqaanaa dadka kalena intii la baryayay intaan ka kicinayna facebooka markhaati annaka oo ahaynoo joognay facebooka ka kicinayna war hebelow war gurigaaga waa waraay xasan shiikh oo madaxweynaha iyo sheekh shariif oo madaxweyne soo maray oo labadoo noonba ay hawiye abgaal u dhasheen xabadaa lala dhaca darwaleentooda la laayay hal nina oo abgaala oo inta soo istaagay yidhaahda farmaajo xabadaan la dhacayna ma jirin daaminkaas runtaan ka hadlaynaa de madaxweyneyaal maadaama uu naga laayay ma jirin de runtaan ka hadlayna magaca guud iyo hawiye ku timid rag waaweyn odayaalaha soo fariistay idaacadda oo ka mid yahay ninkaan la yidhaha muxuu ahaa candhuf muxuu ahaa magaciisa ilaabay ninkaan la yidhaahdo ninkii odagaa shala hadlay hebel weyne ninkaas odaga ah waa lacagu soo qaata qawaariistu ka soo qaata odayaashii cadaada laga soo qabtay oo nabadoonnadii saleebaan wax alla wax baarlamaanka ugu jira iyo wax alla waxa siyaasi oo saleebaan leeyahay jufada abargidar oo saleebaana odayaashoodii la xirxiray waxba ma dhaamo ha la xiro haddii baasho ay cadaalad shaqaynaysa wey ha la xiro ninkaan la yidhaahdo xaad markuu hawiye ka dhex shaqaynayo uu leeyahay jufo gooniyaa la riixa dadkii dhulkan iska lahaana waa la riixa waa alaab loo soo dhiibay oo qabiilka la iskula dhufanaye ha la xiro odayaashii iyo kaa nabadoonnadaa kama duuna afkii shabaab u gudbinaya wallaahi bilaahi talaa u gudbinaya haddii kale habargidir haddii loo xoog sheegtay oo odayaashoodii dhaqankoodii keliya la xiray dowladdaa soo caddayso xawaadla haddii loo xoog sheegtay oo odagoodii dhaqankaha la soo xirana dowladdaa soo caddayso waa labada maaragta qabiil oo odayaashooda xiran yihiin nabadoonnadooda dadka soo xiri jiray ay xiran yihiin waa runta markii laga hadla de xaad wuxuu ku hadlay beel hawiyahay isku dhufanaysaa qartab wuxuu ku hadlay ninkaan la yidhaahdo candhoofo weyne asagana darba weynaan ka wadaa raalli ahaada darba weyne asagana wuxuu ku hadla waxay isku dhufanaysaa dhaqanka hawiye isku dhufanaysaa odayaasha iyo dhallinyarada hawiye isku dhufanaysaa waana hadallo loo soo dhiibay oo qabiilaysan xasan shiikhna shaqaa laga waayay runta markii laga hadlo darba weyne iyo xaadba shaqay ka waayeen markii shaqo ka waayeenna nimankii ayaa kaa shaqaalaysiistay ninkii inta u tegey marka gurigooda ugu tegey heshiis la soo qortay iyo ninkii ay hadal u soo dhiibeen waxba isma dhaabaan dowladda waxaan ka codsanaynaa odayaasha aanu afduubannahay dhowr iyo 30 sano 40 sano oo hawiye oo dhallinyarada hawiye isku dhufanaysa oo waxgaradka hawiye isku dhufanaya oo dhaqanka oo bulshada hawiye isku dhufsanaysa ayaka xabsiga looga xiro waa codsanaynaa codsi wey aniga xil guntadaa soo codsaday maanta hana laga xiro meel hana looga xiro intaan qawaariista la dagaalayno nooma ogola inaan nafis helno hadalla isku kaana dhufanayo dib noo dhigayay sheegayaan hadalla dadkii difaac ka soo bixinaya sheegayaan hadalla qabiiladii kala caraysiinaya sheegayaan nimankaas ayaka ah waxaan ka codsanaynaa dowladda inaysi dib noo dhigin oo mushaaraadka ay hoos u qaadanayaan oo maaragtay ay niman ku siinayaan qawaariista inay dowladdu intay ogaato xaqiiqdaas xabsi guri ay ka dhigtaa liist hadday sixirin xataa inta caddeymahooda la helay waa hubaal waa xaqiiq inay hadalladaas ay niman qawaariisha soo dhiibeen xaad iyo ninkaan la yidhaahdiyo iyo darba weyn ay ku hadleen wax isweydiina male iyo intii kaloo la jawaabtay oo odayaaloo dhaqana aad baan uga xumahay aniga shaqsi ahaanteeda annakoo dhulkanagii qawaariij naga soo cayrsato ilmihii iyo carruurtii naga soo cayrsato hal goob aan isugu nimid oo muqdisho la yidhaahdo oo nin walbaba carruurtiisii ay dhex joogaan qawaariij inaan maantay garan weyno waxaan ka xoroobayna iyo waxna laga xoraynayo